واتاي وعنا وناكسن داوديال ميل كستا oo aad caalamka nagala socotaan deyntii ugu badanayd abid ayuu wareejinayaa Muuse Biixi madaxweynihii laga guuleystay doorashadii dalka Somaliland ka dhacday horaantii bishii hore ee aynu soo dhaafnay ee November waxaa baraha bulshada soo galay warar joog hoose ku duulaya oo ku saabsan deynta xukuumadda Biixi wareejin doonto oo markaasi dhan 350 milyan oo dollarka Mareykanka ah haddaba sanadkii 2022 ee aynu soo dhaafnay wasiir Sacad Cali Shire oo ah wasiirka maaliyadda xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa 45 milyan waxa uu sheegay laanta BBC Somali in xukuumadooda lagu leeyahay deyntaasi halka maanta oo ay ka harsan tahay 2 maalmoodna la sheegay in 350 milyan oo dollar lagu leeyahay xukuumadda Muuse Biixi isla markaana ay ku wareejin doonto xukuumadda cusub ee madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo markaasi ku guuleystay doorashadii talaabadan deynta ah ee 350 milyan ayaa noqonaysa tii abid ugu horeysay ee xukuumad Somaliland ka talisa ku wareejiso mucaaradka ka guuleystay waxana ay noqonaysaa fadeexadii ugu weyneed oo markaasi markale ku dhacda xisbiga kulmiye dadka muwaadiniinta ah ee reer Somaliland ee markaasi taageera xisbiga kulmiye iyo xukuumadda dhacday ee Biixi ayaa durtaba walaac xoogan waxa ay ka muujinayaan wararka ku saabsan 350 milyan ee markaasi aan lagu qaban wax muuqda